kulanti wacan khiyaaray kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay iyo waxyaabaha wargeysyada caalamka ay ka qoreen saxada kubadda cagta maanta oo Jimco ah. muuqaalkeena intayna bilaabin saaxiibayaal like saara sina share gareeysa asxaab badan oo gaadho haddii tahay markii ugu horreysay aan soo booqatana fadlan rukumo oo kambalelkana furo saad la socoto wararkii ugu dambeeyay dhaqaaqa suuqa kaliibsiga iyo waxyaabaha ku cusub kooxdaada. mar labaad soo dhawaada saaxiibayaal haddaynu ku bilowno Koke ayaa ciyaar maskaxeed la ciyaaraya Vinicius Junior kahor kulanka Derby Madrid. Koke waxa uu sameeyay bartiisa bariisa bulshada ayaa waxa uu hanjabaad uga diray Vinicius Junior oo ku daabacay haddii aad isku daydo in garoonka Atletico Madrid aad ku dhex jaasto inaad waxaad la kulmi doontaa buu taagan yahayba Koke dhib aad u weyn baad la kulmi doontaa. hadalkaasi waxa uu sameeyay qaranka dhan ee Brazil oo dhan buu hadalkaasi saameeyay xidigahaasi ciyaartoyda xulkaasi Brazil ayaa badi waxay soo direen Vinicius Junior hadalo ay ku dhiirigelinayaan. waxay leeyihiin farxadaada cidna ha u joogteen bileeyno cidna ha u joojinin oo cidna ha ka cabsan bileeyo farxadaada hore u sii wado. ciyaartoyda laacibkani hadaladaasi dhiska u soo qoray waxaa kamid ah xidiga Barcelona ee Rafinha, Neymar, Richarlison iyo waliba xidiga kale. wana kulankaasi Derby Madrid waxay labadani kooxood ay wada ciyaari doonaan maalinka Axadda waxaana ay kooxdaasi Real Madrid ay booqan doontaa garoonka Atletico Madrid. haddaynu ka nimaadno warkaasi Cristiano Ronaldo oo xalay kulankii 8aad oo gool la'aana soo afjaray. xalay waxaad markii ugu horeysay aynu aragno dabaaldega waxaad Cristiano Ronaldo sanadkani uu ka daahay ula soo daahay dabaaldegaasi. Ronaldo macaalaha dio koox xaafadeed oo gool ka dhaliyo dabaaldegiisa meel buu saarayo diisaga waa lagama maarmaan. waxaana uu ka dhaliyay horyaalkaasi Europa League goolkiisii koobaad. sidoo kale waxa uu dhaliyay Ronaldo xalay goolkiisii 699aad ee kooxaha uu dhalinayo. Messi ayaa dirto madaxa la galay taageerayaashaasi Cristiano Ronaldo waxay madaxa ka galeen Lionel Messi kadib markay maalmo dhawaada maqleen markii kooxdii reer Israel uu championka Messi gool ka dhaliyay uu ku garaacay Ronaldo 90 kooxood oo kala duwan uu ka dhaliyay gool. iyaguna waa kaasoo Europa League oo Ronaldo aanu isagiisuna aanu ku faraxsanayn Europa League oo laga dareemay goolku dhaliyay aanu ku faraxsanayn haddana taageerayaashu waxay leeyihiin Messi wali gool kama dhalin Europa League dhankana Ronaldo waa ku garaacay. Messi waa yaaban yahay waxa uu leeyahay xitaa haddii Ronaldo Europa League ka ciyaarayo waa lagu daba jiidayaa aad ayuu yaaban yahay. waxaynu arkaynay xidigaha Bruno Fernandes, McTominay oo markii dabaaldega Ronaldo goolka dhaliyay uu dabaaldegay iyaguna la dabaaldegayo ayaguna haya ayaa laga dareemay. waxa Ronaldo uu soo afjaray 8 kulan oo haba yaraatay wax gool aanu dhalin ha noqoto Europa League oo kulankii labaad waxa la ciyaarayay kulamada Premier League oo soo ciyaaray 8 kulan wax gool ma dhalin. sanadkana waxa weeye sanadkii ugu xumaa ee waayaha Cristiano Ronaldo oo 8 kulan oo bilaa gool u noqdo. waqti caawan oo soo afjaray goolkiisii 699aad ayuuna dhaliyay dhanka kooxaha uu dhalinayo. Joaquin oo ah 41 jir iyo waliba 41 sano ee haliyegaasi Real Betis ayaa waxa uu noqday gool dhaliyaha ugu da'da weyn ee horyaalkaasi Europa League kadib markii kooxdiisa Real Betis oo xalay 3 gool ay ku adkaatay goolka labaad oo saxay. waxa uu noqday xidiga ugu da'da weyn ee Europa League goolka dhalinaya waa 41 jir iyo 56 maalmood ayuu jiraa. haddana waxa uu ciyaarayaa kooxda Real Betis oo waqtiga Europa League waxa uu ka dhalinayaa gool. waxa uu noqday xidiga Europa League ee taariikhda waliba isagoo da'daasi jira gool ka dhalinaya. Haaland ayaa isagana waxa loo doortay xidiga bisha macadka loo dooran lahaa waa maya xidigan lugaha dheer leh ee wixii madaxa loogu talagalay lug ku dhalinaya. waxay ku qaadatay waqti yar durtaba isna inuu noqdo xidiga ugu fiicnaa ee bishani. Haaland runtii lama haysan karayn waayo sanadkan waxyaabo ka sameeyay waa aragnaa durtaba 12 gool ayuu sii marayaaba Premier League runtii ninkani gool fara badan waa dhalin doonaayo
horyaalka taariikhaha u wada yaala Premier League sanadkanba bal eegno wuxuu jebin doonaa rikooro fara badan. wax yar bay ku qaateen inuu durto uu noqdo xiddiga bisha waa u qalmay runtii. Arteta ayaa isaguna waxaa loo doortay tababarihii ugu fiicnaa bishani, inkastoo isaguna uu qalmay oo waxyaabo badan uu kasoo sameeyey kooxdiisaasi Arsenal. sanadkani kulankii lixaad ba laga badiyay ma ahaane 5 kulan oo xiriir ay kooxdiisu adkaanisay, inkastoo kooxdii ugu horeysay LS Orankan waa koox weyn ay tartan la galeen ay garaacday, haddana 5 kulan ee hore waxay la ciyaareen kooxaha iska meel dhexaado runtii. inta badan iyaguna kooxay kasoo badin waa kooxaha waaweyn inta badan ku adkaya, laakiin waxaa lagu tijaabinaya kulankii Arsenal, kulankii ay la ciyaarisay Manchester United, kulankeed lixaadna waa la garaaco 5 kulan oo xiriir Arteta wax gool daraa lama kulmin. kulankiisa lixaad unba loo garaacay garoonkaasi Old Trafford ma ahaane, isagana waxaa loo doortay tababarihii ugu fiicnaa bishani. Real Madrid ayaa waxay doonaysaa inay martigeliso ciyaar tenniska oo u dhaxaysa Rafael Nadal iyo waliba Roger Federer u dhaxaysa ay doonayaan inay martigeliyaan, waayo waa la yaabantahay waliba waxa lagu martigelinayaa garoonkaasi Santiago Bernabeu. runtii inta badan garoomada aynu soo aragno hal qaab oo keliyata ayaa loo dhisay oo ah in lagu ciyaaro kubaddaasi cagta oo keliya, laakiin Real Madrid qorshahaasi ka duwan bay sanadkan la timaadayo dib casriyeynta ay ku samaysay garoonkeeda. waxaa ku jira qorsho ah in waxyaabo badan garoonkan loo adeegsan karo. weli waxaad aragtay garoonka qaybta hoose oo qabiya, weli fikra badan baa laga aaminsan garoonka isagoo lagu ciyaaro, haddana xagga sare dhismaha ka socda, xagga hoose dhismayaal baa ka socda. Real Madrid sanadkan qorshayaal fara badan bay garoonka Santiago Bernabeu ka leedahay oo iminkan dhawaan waxaa isku diyaarinaysa garoonkaasi dhexdiisa ay martigeliso ciyaar waliba tenisa. waliba waxaa jira dooqyo fara badan oo aan iminka lagu hordhici karin oo ay Real Madrid ay u diyaarinayso, waxyaabo badan oo kubadda lagu ciyaari karo ay doonayso sanadkani inay ha ku soo hagaagin garoon kubadda cag keliyata, xitaa la meelo hoose ganacsi lagu talagalay kubadda fara badan dabaqyo hoose jira. weliyadoo xataa aan lagu ciyaaro ayaa xagga hoose waxaan aragnay meel dahaaran oo garoonka dabaqa hoose ayaa jira, weli isaguna qabiyayo waxyaabo fara badan xaggiisa hoose ay ka socdaan dhismayaal, xagga sare iyadoo lagu ciyaaro ay weli dhismayaasha isagana ay ka socdaan. warkaasi haddeen ka nimaadno James Rodriguez ayaa isagana waxaa si rasmi lagu dhawaaqay in kooxdaasi Olympiacos isaguna uu ka digay heshiis 1 sano ama hawlo gaaray saaxiibkiisa hore Marcelo. kooxdaasi Real Madrid ay soo wada ciyaari jireen oo isaguna kaga sii horeeyay kooxdani Olympiacos ayaa isaguna halkaasi ay ku wada midoobi doonaan sanadkani. kooxdaasi reer Greek ay labadan xiddig ka digeen James sanadii ugu dambeeyay runtii waa dhibtoonayo kubadda cagtu runtii xishood kama taqaano, haddii meeqaabka kubaddaadu hoos u dhaco runtii kooxaad joogtid waxba ka noqon, inta lugtaadu shaqaynayso ayuunbaa lagu xamaalinayaa ma ahaane, haddii hoos u dhaco ku yimaado waa adigaas ka wareeri weeyaanoo kooxa fara badan soo mara. iminkana Greek ayuu marayaaba xiddigani. Chelsea iyaduna waxay wada hadal ay kula jirtaa kooxa Brazil iyo Portuguese ka soo jeeda. Todd Boehly waxa uu doonayaa isaguna waxa uu qorsheynayaa inuu mulkiyo kooxa fara badan sida mulkiyada Manchester City oo kale aan aragnayna kooxa fara badan ay maamulaan. tabtaas oo kale ayuu doonayaa Todd Boehly isaguna kooxa fara badan oo Brazil iyo Portugal iyo kasoo wada jeego oo qiimo jaban lagu heli karayo oo sida horyaalka Premier League ee dhowrka bili naga siyaan noqonayn runtii isagu doonay inuu kor u soo kiciyo ay doonayaan oo waxay rabaan sida mulkiyada Man City oo kale ay noqdaan. Zinchenko ayaa isaguna waxa warar ka soo baxay wadankaasi Ukraine waxay sheegayaan in Zinchenko oo ku dhaawacmay tababarka kooxdaasi Arsenal oo uu sheegi doono kulamada toddobaadkan ay ciyaarayaan kooxda Arsenal ay la leedahay toddobaadkani Brentford toddobaadkan kulanka ay la leedahay ayuu sheegi doonaa. Zinchenko oo ku dhaawacmay tababarka ay isugu diyaarinayaan kulamadaasi kooxdaasi Arsenal. wararka runtii waxaana ay kasoo baxayaan wadankaasi Ukraine oo sheegaya in laacibkani ka soo jeeda wadankaasi Ukraine oo ku dhaawacmay tababarka Arsenal oo sheegi doono kulankani Brentford toddobaadkan ay la leedahay kooxdaasi Arsenal. wararkeena ciyaar wanaag intaas saaxiibayaal inta aynu kulmi doono wararkeena kale oo assalaamu calaykum.